mas-uuliyiinka kala socday xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha iyo xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa soo kormeeray mashaariicaha horumarineed ee xafiisku ka fulinayo magaalada Dhagaxbuur. Mashaariicahan oo ka kooban 3 wado oo laami ah oo dhawaan la filayo in la soo gabagabeeyo ayay waxay wafdigan ugu horeyn booqdeen qalab loogu talagalay dhamaystirka wadooyinkani waxaana goobtaasi ka hadlay oo faahfaahiyay ujeedka socdaalkooda agaasinka xiriirka dadweynaha ee xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Axmed Cabdi. halkan waxaan u nimid hawlo shaqo oo kormeer ah inaan kormeer ku sameeyno wadooyinka laamiga ah ee Dhagaxbuur aan ka wadno xafiis ahaan waxa weeye 2.4 kilomitir oo asfalt road ah waa 3 wado weeye mashruucan inkastoo waxa weeyaan caqabada uu la soo darsay waxay ahayd inuu dhamaado bishii hadda inaga tagtay Ingiriiska September in la soo gabagabeeyay ahayd waxa ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen labadan warshadood oo waxa weeyaan midna ay daamirka tii sameynaysay soo saareysay waxa weeyaan daamirka iyo alaabta isku reeqan iyo tii dhagaxa weeyaan saddexda wado way dhamaatay road 2 waa diyaar waxay diyaar u tahay in la dul dhigo waxa weeyaan laamidii in la dul dhigo labada wado kalena waxyaabaha ka dhiman in muddo gaaban gudahood la dhameystiro ayaa waxa weeyaan qorsheysan intaasi kadib wafdigan ay weheliyaan maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo shirkadda gacanta ku haysa wadooyinkan ayaa soo kormeeray mashaariicahan si loogu kurgalo caqabadaha xalna loogu helo ayay mas'uuliyiintan kala duwan shir ku yeesheen guriga shirarka ee maamulka magaalada Dhagaxbuur iyagoo qolo walba ay soo bandhigtay waxyaabaha hortaagan wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cabdikariin Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo ka hadlay goobtani ayaa kula dardaarmay in wadadan si dhaqso ah loo dhameystiro si qorshaha sanadka soo socda ee xafiiska uu magaalada Dhagaxbuur wax kale loogu qabto muhiim waxa weeyaan qolo walba geeskeeda ka soo bax shaqadan waa aad muhiim inoo tahay sanadkan toona dhamaan waxaan rabnaa inaan Dhagaxbuur 3 laami aan dhigno sanadka 2014 inay qorshayaal cusub oo xafiisku diyaarinaya inay hesho haddii kale waxay noqonaysaa tan lagu sii leeyahay annaguna ma rabno shacabkuna ma rabaan marka inaan saa u dhaqsaa badan sanadkan inaan ku gabagabayno wadooyinkan inaan quality-gooda ilaalino tigraarina si fiican nooga ilaaliyaan waxaan sameeynaynaa anagu waxaan ballan qaadnay wax quality noqdo wax degdeg iyo sidii bariga hore lagu yaqaano kala wadooyinka la dhigo la qaado ma rabno inaan sameeyno waxaan rabnaa inaan wadooyin quality la dhigno oo dadku ay u aayaan marka fadlan saa u dhaqsaa badan qolo walba geeskeeda ka soo bax shacabkan in badan bay daaleen waxay rabaan inay helaan kaabayaashooda dhaqaale inaga gacanteena ku jirta dhammaanteen dhalinyaro wadanahay dhammaanteen waxaan haynaa energy-gan ku qaban lahayn reason ma laha marka ay hawshan dib dhacdo marka fadlan maamulka magaalada geeskooda iyaguna ka soo baxaan annaguna ballan qaadayna geeskayga waxay nagu aadan mar walba inaan ka soo baxno contractorku waan soo aragnay qalabkaagu dhammaystiran fadlan idinkoon isdhiganin inaad hawsha dhammaystirtaan markii uu kulankan soo gabagaboobay ayaa waxa warbaahinta deegaanka la hadlay Kamaal Sayid ku-xigeenka duqa magaalada Dhagaxbuur waxaana hadaladiisii kamid ahaa si mashruucan oo daahid badan ka jirtay loo sax goldololooyinka iyo dhibaatooyinka haysta mashruucan kulli qolo kastaana waa loo soo jeediyay dhaliilha iyadoo leedahay halka baana lagu saxay waxaana la isla qaateen mashruuca lagu soo gabagabeeyo bilahan haray si uu adeeg u bixiyo maadaama mashruucan uu 2 sano iyo badh in ku dhow socday kulli si fiican baa noogu soo dhamaatay insha Allah qaybta magaalada naga aadan inaanu toddobaadkan gudihiisa ku saxno ayaan ballan qaadnay contractor-kiyo qaybaha kalena iyaguna ay si dhow u socdo doonaan kulli mashruucan si fiican buu socdaa bulshaduna in ay ka qayb qaadato wax qaybaha kaga soo aaday sida marka loo rate of way-ga la siinayo iyo wixii awaamiir kale ee wadadan fududeyn kara inay geed socodkeedu uu si degdeg u socdo in iyaguna ka qayb qaataan ayaan soo jeedin lahaa